block ads waa habka ugu fudud aad iskaga xiri kartid xaysiimaan ka soo dhex muuqanaya moobilkaaga iyo meelaha aad sida goonida u isticmaashidba sida Facebook, Instagram iyo YouTube ayaamihii dambe YouTube wuxuu soo kordhiyay muuqaal kasta oo aad daawanaysid inuu ku soo celceliyo xaysiimo kala duwan kuwaas oo ah xaysiimo dhaadheer oo aanan laga aqbalin ilaa aad xaysiinta daawatid inuu muuqaalka ku soo noqdo sidoo kale moobilkeena Android wuxuu bilaabay hadii aynu khad furno oo aynu moobilkeena gudihiisa soo dhex galno inagoo xitaa wax application furin inuu markiiba inaga hor keeno xaysiin sideeda u soconaysa waxa kale oo dhacda applicationada aynu sida caadiga u isticmaalno sida applicationada gameska ah inayna weydiiyaan amba markasta aynu soo hordhigaan xaysiintaasna aynu ugu qasbaan ilaa 3 skiin ka daawano laftirkeeda inaan dhameysano hadaba arintani waa arin qof kasta oo moobil sita ku mudan ahna xaysiimahan oo markasta moobilkiisa ka soo muuqanaya inay nooc kasta iskugu jiri karaan xumaan iyo wanaagba qof kastaana ma jeclaysan karo inuu moobilkiisu markasta xaysiinun hortaagnaato waayo khadkana way la qaybsanayaan daatada adigu isticmaalaysid ee ku shubatay ambiyada qaarna way qaybsanayaan hadaba maanta cashirkeena gudihiisa ayaynu ku baran doonaa sidii aad iskaga xidhi lahayd waxaas oo xaysiin waxaana laga yaabaa inaad taqaanid hab yar oo fudud oo dhammaan dadkooda yaqaanaan kaas oo ah in laga xidho xaysiinta xagga Gmail-ka waxaana ogaataa xagga Gmail-ka markii aad ka xidhid wuxuu baa ka xidhmaya xaysiintii kaaga iimaysay xagga Google Ads ay kaama xidhmayaan website-yadii kale application-yadii kale Facebook-gii laakiin cashirkan gudihiisa ayaan kugu bari doonaa sidaas ka xidhi lahayd xaysiin kasta oo moobilka ka soo muuqdo soo dhaw halkan waa Tusa Technology fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay kanaalka subscribe garee السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك حوران كنالك دما أنت عشركين وحنا غندونا عشركين وفافاهين تير هوري كصوب حناي وحن نستيس دونا سيدا نسكي حوري لهين حيسيمان مرة كسيدا بيسا كصوب بدنا يتليفون لدينا هدي نقطة أبليكيشنين سي خاص كوست استعماله يلفتر كده هدي نقطة سيدا عادقة يمولكوا haddaba habkan si aad sameeysid waxa la soo degaysaa application magaciisa la yiraahdo block ads application kan waxa laga yaabaa inaad heshid application kale la mid ah hadii aad istiraahid meelaha caadiga kala soo deg laakiin se bal waxaan isku daynaa sida saxda ah isagoo caadi ah sida loo soo dego sidoo kale description hoose ayaa linkigiisa ku dhigi doonaa xaggana waan ka tusi doonaa sidii ugu fudud ee la soo degi doonto هذا application كان كورنتين لسه دين هديان فافاهين رجود كاسي سريو application كان وحوش شغالين يا سيدي في VPN أو كله سيدو كله وحنا كحلا يا دمان حيسيمها كاجي من أي مول كاجا كوي application كاركو وتان يكو عاد جا ويب سايت كوسو دينيا هذا واحد يسكت دينا مركو هو الرئيس بقى سيون لسه دي لهين application كان هرانتا واحد جلسة Chrome-ka moobilkaaga browser ku jira moobilkaaga laftirkeeda Google hawad gali kartaa Chrome-ka marka soo gashid waxaad qolaysaa qoraalka soo qoraysaa blockada oo loo soo gaabay block ads oo RG-daas baad ka sii dambaysiinaysaa ORG كدينا واسيرش جرينسا كدينا maxay toolay website-ka ugu sareeya ee ah the best and blogger for Android iyo SEO kaas baad maxay toolay taabanaysa kadib marka website-ka ku soo geliyo wuxuu ku soo saarayaa noocan oo kale xaggan ayuu ka siinayaa application-ku ku sharaxaya runtii application-kan waa application aad u qiimo badan halkan oo kale wuxuu ka tusayaa maxay tahay application-ku wuxuu qabanayo ama intuu ka xurayo xagga sare wada aragta block ads and trackers buu yiri waxaanu ka xurayaa ads-ka waxaanu ka xurayaa weerarada halkan wuxuu yiri waxaad iska xuri kartaa maxay tahay abiska la shaqeeyo browser-daas oo kale adoo waxyaabo badan oo ka quseeya maxay tahay waxaad rabtay ay ku sii tusayaa halkan laftirkeeda wuxuu ku leeyahay application laftirkiisa wuxuu leeyahay VPN oo ala shan feature birfadna wakiya hadaba marka xaggan baad kala soo degaysaa oo maxay toolay aba xaggaas tire kala soo deg
adoo applicationka waad arkaysaa dhowr meelood buu ka qoonta downloadka taas direct la soo deg applicationka mobile-kaaga kusoo shubo. haddaba markay applicationka mobile-keena kusoo shubano sidan buu soo baxayaa. waa application-ka yar ee huruudda ah ee calaamad yar noocaas leh ee 5 ku dambeeya waa blockada 5 amba block addis 5. haddaba applicationka markii sii guda gallo sidan ayuu soo baxayaa. application-kan aniga waan soo allow gareeyay dhowr allow buu ku weydiinayaa dhowr wax buu kuu soo bandhigaya marka allowda. haddaba wuxuu kuu soo saarayaa maxay tolay calaamadan yar halkanna wuxuu kuu soo qorayaa tab activate. markaas haddii makaan halkaas kaliya haddaan taabto wuxuu iga xurayaa dhammaan browserada waxyaabaha meelaha laga soo wareeri karo meelaha mobile-kaaga hadii la wax ka jabsan la soo mari karo waxaasoo dhan wuu xurayaa. haddaba mobile-ka haddii intan kan furto aan YouTube-kii galo waxay siiso haba yaraato soo dhigaya ma jirto. sidoo kale YouTube-ka sidoo kale Instagram adoo waxay siis meel iiga soo baxaya ma jirto. iminka active baan taabto. marka iminka active taabtay turbo-kaaga ay soo diray blocked 409 iyo maxay tahay 79 addis antraxis ay laga xuray oo aan ka block gareeyo ku yiri intaas qoraalka waa soo aragtaan. haddaba bal waxa uu ka sheekeenayo leeyahay waan block gareeyay laftirkeeda ma arki karnaa haween arki karnaa calaamada yar taabo. calaamada yar ma taabano wada aragtaa xagaas tiktok.com xagga dambe eego. haddaba xaysiimahan waa xaysiimihii ka imanay mobile-ka gudihiisa taas tiktok xagga tiktok du ka imanaysaa laftirkeeda xaggan waxa weyn YouTube aan Google abis graph facebook.com web facebook.com dhammaan wada aragtaa xaysiimihii meelay kaaga imanayeen oo dhan halkan buu ku soo dhigay. haddaba haddii aad rabtid inuu xaysiimuhu ku soo muuqdaan mid ka mid ah intan saasun baa oranaysaa kadibna halkaas add to block halkay ku qoran tahay in ba saacadaysaa. waxaan rajeeyay inaad rabeen inuu maxay tahay kugu soo baxo laakiin si hortu waxaan arkay inaad arkaysid intan oo dhan inuu ka xiray ee kamid yihiin dhowr iyo 400 inoo sheegay. sidoo kale xagga recent-ka ay taawano iyagana wuxuu inoo soo dhigayaa kuwan imika maxay tahay haddadan xaysiinta soo wada oo joojiyay 12 second iyo 13 second intuu saacadaha sekinada intii yar ku sheegaya. haddaba xaggan kale hadii taawano imika halka hoose activity-gaas in taaganahay xaggan kale hadii taagno ee advanced-kan ay sii guda galina. advanced-kan haddaba wuxuu ku soo saarayaa block listiga iyo maxay tahay block listiga iyo apps-ka. intan waxa weeyaan meelihii waxaad ka block gareynaysaa deerteen application inaad block gareysid hadii rabtid inaad website block gareysid waa meelihii aad ka block gareyn lahayd. iminka hadii aan tago block listigaas sare koosuu block gareey website-yadan iminka intan ba maxay tahay waxaan rajeynaa taqaaniin website-yadan halkan oo maxay tahay inoogu dhilgaray inaga block gareeyay iminka kaas Goodbytes baa la dhahdaa oo wuxuu soo dhexmariyay Google-ha kadibna mobile-kaaga soo furaa kadibna waa Vision Arabic kana waa fahmin zaman filaya oo marka wax la jabsanayo la adeegsada kaado website-yadan oo dhan maxay tahay uu ka difaacay oo waxaan tahay uu ka xiray halka ku qoran tahay block listiga. haddii aan ka soo baxo aan yiraahdo my block list anu wax website ama block gareyn halkan waxaan ku soo doona website sida gaarka u block gareysid. sidoo kale apps-kan halkan apps ay ku qoran tahay haddii aan guda galo application-ka aan rabo inaan u fasaxo amba goonidiisa oo block gareeyo ayuu man soo taabanaya kadib in yar buu saaso kale isku mudaweynayaa kadibna calaamad yar oo akhtara ayuu hareerta ka qaadanaya waan eegi doonaa. calaamad yar oo akhtara ayuu hareerta ka qaadanaya qoraal yar oo akhtara ay isku qoraya wakaas qoraalka yar akhtara bay baasidka ka dambayso ayuu maxay tolay qaadanaya kadibna marka rabtid inaad ka biisidna sidoo kale baa sameynaysaa oo waad ka qaadaysaa qoraalka yar waad ka qaadaysaa. haddii xaga ka noqono xaggan ugu hooseysana waa network-kii oo waa xaggii uu ka yimaanayay maxay tahay isticmaalkan khadka isticmaalay noqotay data amba hadii uu noqdo waa fiber. halkan waad aragtaa labo inoo soo dhigay
wuxuu leedahay labadaas maxay tolay meelood horta mobilka ka isticmaala waa network iyo maxay tolay mobile data. haddaba mobile data maxay tolay waxaan rabaa inaan wax adis iga soo dhexgelin markaan isticmaalayo, sidoo kale waa feegay inaan iga soo dhexgelin wax adis. waayo imika haddii aad mobilka khadka furtid isagu ma kala yaqaan maxay tolay waa data waa fay labadaba markasta uu kala joogayo markasta uu iska soo dhacaya. haddaba application-keenu maanta amba cashirkeenu intaas ayuu ku saabsanaa oo maxay tolay waxaan rajeynayaa aragti haddii aad rabtid inaad bakhtiisidna calaamada yar maxay tolay sida amba laga bakhtiyo fahmaysid ayaad ka bakhtiinaysaa. xaggan haddii aynu sii gudubno waa setting-kii xagga main account ay ku qortay hadii aan taabto waxay ku qortay general account ID ay ku qoran tahay. haddaad soo taagtid tab show taagtid halkan waxaan kuu soo saarayaa isaga account si automatically kugu sameeynaa marka la soo degtidba hadaas waa account-kaaga waxaa kugu soo qorayaa. xaggan maxay tolay waa active forever ayaanigay tahay oo halkan intan ka shaqeynaya laakiin si aad wax saameyn kuma yeelin kartid. waxaan rajeynayaa cashirkan wax badan ka faa'iidi doontaan sababtoo ah dadka qaar baa waxay maraan hab haddana ay kaga bixi waayaan inuu adiska u soo noqdo kaasoo ah intay gmail-ka galaan iska xirnaa adiska haddana ay isla biridiba ku arkaan meelo ka mid ah application-ka isticmaalayaan adiskii oo ay waxa laga yaabaa iska xirnaa Google adiskii oo kaliya. haddaba application-kan awood wuxuu leeyahay marka haddii aan YouTube-ka galo haddii aan video daawado waxay si soo dhexgelayaan ma jiro. waxaan rajeynayaa cashirkan wax badan ka faa'iiday. fadlan kanaalka subscribe gara haddii aad tahay markii ugu horeysay aad soo booqatid.